ma uu wato magaalada Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gado. Janan ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in markaasi uu qaatay go'aanka la xiriira in dawladda aynu ku bilownay sidii aad ku maqlayseen hordhaca barnaamijka dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in si rasmi ah ay heshiis ula gaartay wasiirkii amniga Jubbaland Janan oo lagu soo dhaweeyay maanta isaga iyo ciidamo uu wato magaalada Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gado. Janan ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in markaasi uu qaatay go'aanka la xiriira in dawladda uu heshiis la gaaro. Haddaba goor dhaweed ka hor daqiiqado intaynu hawada soo gelin ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaana uu iga warramay bal heshiiska ay dawladda ay wada gaareen. dawladda Soomaaliya waxaa ku heshiimay in khilaafkii la afjaro laga heshiiyo shacabka Soomaaliyeedna loo turo dawladnimada ummadda Soomaaliyeed muddo ka maqneed oo freedi hadda la helay oo ah codka wanaagsan ku socotana in laga wada shaqeeyo si ummadda Soomaaliyeed qarannimadeeda iyo sharafteeda loo soo celin lahaa khilaafkana la xiro xaqiiqiyan shacabka soo gaar ahaan aniga shakhsiyan shacabka Soomaaliyeed oo cudurro Soomaaliyeed inta badan tiirinayeen oo islahaayeen dabcan xal kari doona oo ummadda Soomaaliyeed wax farxadeeda ay ka soo baxdo marka inaan go'aansado in dhinacayga qaybta aan hayo ummadda Soomaaliyeed ka qaada wax soo celiso ummadda Soomaaliyeed aan uga shaqeynaa farxadeeda iyo dawladnimadeeda. Marka adiga miyuu ka yimid heshiiskan aad dawladda la gashay mise dhinaca dawladda ayuu ka yimid? xaqiiqiyan walaal dawladda khilaafkii ay ugu bilowday muddada yarteeda koobneed markii laga soo saaro wixii ka dambeeyay muddo dheer oo sanad ka badan waxay dawladda dhexe inta badan ay u taagneed in arrintan la xalliyo wada hadal aan intaas ilaahay uu suurtageliyay maanta ana markasta jiray. Maamulkii aad ka tirsaneed Jubbaland dabcan waxaa la sheegay in xilka ay ka qaadeen arrintaas sidee u aragtaa? walaal waxa sidii waa ka bari weeye xilada Axmedoobe warqadu qoray sax ma aha taas ila ma arko waxa ixtiwaar oo fara badan dawladnimada shacabkan Soomaaliyeed oo shacabka Dhiibay oo dadkan gobolkan Jubbaland la isku raacsan yahay oo loo wada dhan yahay oo cadaaladeeda loo wada siman yahay xuquuqda iyo wanaaggeeda iyo horumarkeedana inta badan marnana ma dhicin oo ma jirin laakiin haddaan ka shaqeynayna insha Allah raxmaan in Jubbaland ummadda Soomaaliyeed oo Jubbaland ay isku raacsan yihiin aan ka shaqeyno biidhnillaahi tacaala. ciidamadii iyo gaadiidkii aad wadatay ma dawladda ayaad ku biirinaysaa oo ciidamada dawladda ayay ka mid noqonayaan mise aday weli kula joogayaan? walaal ciidamadii iyo gaadiidkii ciidamo qaran waayo qaran dawladda Soomaaliyeed oo ku wareejinaya qarannimada Soomaaliyeed oo shaqeynayna. markii hore adoo wasiir ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaad dawladda ka soo horjeeday haddana xilkii waa laga qaaday dawladdiina waad ku biirtay hadda maxaad noqonaysaa Cabdirashiid? walaal ani markasta shakhsi reer Jubbaland aan ahay taas iga mas'uuliyad kama tagayo mas'uuliyadda xil in ahay inaan helin wax kale markaas ayada ah laakiin shakhsiyan inta aan noolahay shakhsi waxaan ahay reer Jubbaland ah oo Soomaali ah qarannimada Soomaaliyeed oo guud ahaan iyo mid gaar ahaan reer Jubbaland oo wanaagooda maslaxadooda inuu ka shaqeeyana ay u taagan markasto waxaan ahaanayaa marka shakhsiyan Cabdirashiidka aan shalay ahaa khilaafka dawladda dhexe naga dhaxaysana xilligii uu soo bilowday waxa sanadkii hore bishii 8aad xilligii doorashadii Jubbaland xilligaas iyada ah dareenay ka dhacdo ay ku kala aragtidaan dawladda dhexe xaqiiqiyan oo wado aan sax ahayn oo beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliyeed baa ay ku ka qaylinayaan iskeen dhatirnay aan go'aansanay groupkan iyo talada hayay inaan qaadano inay taanada bas socoto oo si sharci darro aan go'aansanay inaan annaka isoo celin annaka maamulka ayna isoo celin dabcan taas waxaa dhacday marka khilaafkii aniga oo xamar lagu qabtay Jubbaland xirnaa 5 bilood ah kadib khilaafku baa taagnaa asagii maanta ka gudubnay in aan afjarno. aynu ku bilownay sidii aad ku maqlayseen hordhaca barnaamijka dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in si rasmi ah ay heshiis ula gaartay wasiirkii amniga Jubbaland Janan oo lagu soo dhaweeyay maanta isaga iyo ciidamo uu wato magaalada Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gado. Janan ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in markaasi uu qaatay go'aanka la xiriira in dawladda uu heshiis la gaaro. Haddaba goor dhaweed ka hor daqiiqado intaynu hawada soo gelin ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaana uu iga warramay bal heshiiska ay dawladda ay wada gaareen. dawladda Soomaaliya waxaa ku heshiimay in khilaafkii la afjaro laga heshiiyo shacabka Soomaaliyeedna loo turo dawladnimada ummadda Soomaaliyeed muddo ka maqneed oo freedi hadda la helay oo ah codka wanaagsan ku socotana in laga wada shaqeeyo si ummadda Soomaaliyeed qarannimadeeda iyo sharafteeda loo soo celin lahaa khilaafkana la xiro
xaqiiqiyan shacabka soo gaar ahaana aniga shakhsiyan shacabka Soomaaliyeed oo cudurro Soomaaliyeed inta badan fiirinayeen oo islahaayeen dabcan xal kali doona oo ummadda Soomaaliyeed wax farxadeeda ay ka soo baxdo marka inaan go'aansado in dhinacii qaybta aan hayo ummadda Soomaaliyeed ka qaada wax soo celiso ummadda Soomaaliyeed aan uga shaqeyno farxadeeda iyo dowladnimada marka adiga miyuu ka yimid heshiiskan aad dawladda la gashay mise dhinaca dawladda ayuu ka yimid xaqiiqiyan walaal dawladda kalafkii ay ku bilowday muddada yarteeda foorneed markii laga soo saaro wixii ka dambeeyay muddo dheer oo sanad ka badan waxay dawladda dhexe inta badan ay u taagneed in arrintan la xalliyo wada hadal aan intaas ilaahay uu suurtageliyay maanta ana markasta jiray maamulkii aad ka tirsaneed Jubbaland dabcan waxaa la sheegay in xilka ay ka qaadeen arrintaas sidee u aragtaa walaal waxaa waa ka bari weeye xilada Axmedobe warqadu qoray sax ma aha taas ila ma arko waxada jawaar oo fara badan dowladnimada shacabkan Soomaaliyeed oo shacabka Dhiibay oo dadkan gobolkan Jubbaland la isku raacsan yahay oo loo wada dhan yahay oo cadaaladdeeda loo wada siman yahay iyo barageeda iyo horumarkeedana inta badan marna ma dhicin oo ma jirin laakiin haddaan ka shaqeynayna insha Allah rahmaan in Jubbaland Soomaaliyeed oo Jubbaland ay isku raacsan yihiin aan ka shaqeyno biidhnilaahi tacaala ciidamadii iyo gaadiidkii aad wadatay ma dawladda ayaad ku biirinaysaa oo ciidamada dawladda ayay ka mid noqonayaan mise aday weli kula joogayaan walaal ciidamadii iyo gaadiidkii ciidamo qaran waayo qaran dawladda Soomaaliyeed oo ku wareejinaya qarannimada Soomaaliyeed oo shaqeynayna markii hore adoo wasiir ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaad dawladda ka soo horjeeday haddana xilkii waa laga qaaday dawladdiina waad ku biirtay hadda maxaad noqonaysaa Cabdirashiid walaal markasta shakhsi reer Jubbaland aan ah taas iga mas'uuliyadu kama tagayo mas'uuliyadda xil in ahay inaan wax kale markaas ayada ah laakiin shakhsiyan inta aan noolahay shakhsi waxaan ahay reer Jubbaland oo Soomaali ah qarannimada Soomaaliyeed oo guud ahaan iyo mid gaar ahaan reer Jubbaland oo wanaagooda maslaxadooda inuu ka shaqeeyana ay u taagan markasto waxaan ahaanayaa marka shakhsiyan Cabdirashiidka aan shalay ahaa khilaafka dawladda dhexe naga dhaxaysana xilligii uu soo bilowday wuxuu sanadka hore bishii 8aad xilligii doorashadii Jubbaland xilligaas iyada ah barnaamijka ka dhacdo ay ku kala aragtidaan dawladda dhexe xaqiiqiyan oo wado aan sax ahayn oo beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliyeed baa ay ku ka qaylinayaan iskeen tirnay aan go'aansanay groupkan iyo talada hayay inaan qaadano inay taanada bas socoto oo si sharci darro aan go'aansanay inaan anaka isoo celin anaka maamulka inaan isoo celin dabcan taas waxaa dhacday marka khilaafkii aniga oo si xamar lagu qabtay Jubbaland xirnaa 5 bilood kadib khilaafku baa taagnaa asaga maanta ka gudubnay in aan afjarno aynu ku bilownay sidii aad ku maqlayseen hordhaca barnaamijka dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in si rasmi ah ay heshiis ula gaartay wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo lagu soo dhaweeyay maanta isaga iyo ciidamo u wato magaalada Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gado Cabdirashiid Janan ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in markaasi uu qaatay go'aanka la xiriira in dawladda uu heshiis la gaaro haddaba goor dhaweed ka hor daqiiqado intaynu hawada soo gelin ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaana uu iga warramay bal heshiiska ay dawladda ay wada gaareen dawladda Soomaaliya waxaa ku heshiimay in khilaafkii la afjaro laga heshiiyo shacabka Soomaaliyeed loo turo dawladnimada ummadda Soomaaliyeed muddo ka maqnay oo freed hadda la helay oo ah codka wanaagsan ku socotana in laga wada shaqeeyo si ummadda Soomaaliyeed qarannimadeeda iyo sharafteeda loo soo celin lahaa khilaafkana la xiro xaqiiqiyan shacabka soo gaar ahaan aniga shakhsiyan shacabka Soomaaliyeed oo cudurro Soomaaliyeed inta badan fiirinayeen oo islahaayeen dabcan xal kali doona oo ummadda Soomaaliyeed wax farxadeeda ay ka soo baxdo marka inaan go'aansado in dhinacii qaybta aan hayo ummadda Soomaaliyeed ka qaada wax soo celiso ummadda Soomaaliyeed aan uga shaqeyno farxadeeda iyo dowladnimada marka adiga miyuu ka yimid heshiiskan aad dawladda la gashay mise dhinaca dawladda ayuu ka yimid xaqiiqiyan walaal dawladda kalafkii ay ku bilowday muddada yarteeda foorneed markii laga soo saaro wixii ka dambeeyay muddo dheer oo sanad ka badan waxay dawladda dhexe inta badan ay u taagneed in arrintan la xalliyo wada hadal aan intaas ilaahay uu suurtageliyay maanta ana markasta jiray maamulkii aad ka tirsaneed Jubbaland dabcan waxaa la sheegay in xilka ay ka qaadeen arrintaas sidee u aragtaa walaal waxaa waa ka bari weeye xilada Axmedobe warqadu qoray sax ma aha taas ila ma arko waxada jawaar oo fara badan dawladnimada shacabkan Soomaaliyeed oo shacabka Dhiibay oo dadkan gobolkan Jubbaland la isku raacsan yahay oo loo wada dhan yahay oo cadaaladdeeda loo wada siman yahay iyo barageeda iyo horumarkeedana inta badan marna ma dhicin oo ma jirin laakiin haddaan ka shaqeynayna insha Allah rahmaan in Jubbaland Soomaaliyeed oo Jubbaland ay isku raacsan yihiin aan ka shaqeyno biidhnilaahi tacaala ciidamadii iyo gaadiidkii aad wadatay ma dawladda ayaad ku biirinaysaa oo ciidamada dawladda ayay ka mid noqonayaan mise aday weli kula joogayaan
حاول العلماء يجاديسكي إذا قرن وايو قرن دولة الصومالية دون كورة دنيا قرنوا الصومالية دون أو سبعيننا. markii hore adoo wasiir ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaad dawladda ka soo horjeeday haddana xilkii waa laga qaaday dawladdiina waad ku biirtay hadda maxaad noqonaysaa Cabdirashiid walaal ani markasta shakhsi reer Jubbaland aan ahay taas iga mas'uuliyadu kama tagayo mas'uuliyadda xil ina hayay inaan wax kale markaas ayada ah laakiin shakhsiyan inta aan noolahay shakhsi waxaan ahay reer Jubbaland oo Soomaali ah qarannimada Soomaaliyeed oo guud ahaan iyo mid gaar ahaan reer Jubbaland oo wanaagooda maslaxadooda inuu ka shaqeeyana ay u taagan markasto waxaan ahaanayaa marka shakhsiyan Cabdirashiidka aan shalay ahaa khilaafka dawladda dhaxanaga dhaxaysan ee xilliga uu soo bilowday wuxuu sanadkii hore bishii 8aad xilligii doorashadii Jubbaland xilligaas ayada ah barnaamijka ka dhacdo ay ku kala aragtidaan dawladda dhexe xaqiiqiyan oo wado aan sax ahayn oo beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliyeed baa ay ku ka qaylinayaan iskeen dhasilnay aan go'aansanay groupkan iyo talada hayay inaan qaadanay inay taanada bas socoto oo si sharci darro ah go'aansanay inaan annaka isoo celin annaka maamulka ayna isoo celin dabcan taas waxaa dhacday marka khilaafkii aniga oo si xamar lagu qabtay Jubbaland xirnaa 5 bilood ah kadib khilaafku baa taagna asagaan maanta ka gudubnay in afjarno aynu ku bilownay sidii aad ku maqlayseen hordhaca barnaamijka dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in si rasmi ah ay heshiis ula gaartay wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo lagu soo dhaweeyay maanta isaga iyo ciidamo u wato magaalada Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gado Cabdirashiid Janan ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in markaasi uu qaatay go'aanka la xiriira in dawladda uu heshiis la gaaro haddaba goor dhaweed ka hor daqiiqado intaynu hawada soo gelin ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaana uu iga warramay bal heshiiska ay dawladda ay wada gaareen dawladda Soomaaliya waxaa ku heshiimay in khilaafkii la afjaro laga heshiiyo shacabka Soomaaliyeed loo turo dawladnimada ummadda Soomaaliyeed muddo ka maqneed oo freed hadda la helay oo ah codka wanaagsan ku socotana in laga wada shaqeeyo si ummadda Soomaaliyeed qarannimadeeda iyo sharafteeda loo soo celin lahaa khilaafkana la xiro xaqiiqiyan shacabka soo gaar ahaan aniga shakhsiyan shacabka Soomaaliyeed oo cudurro Soomaaliyeed inta badan fiirinayeen oo islahaayeen dabcan xal kali doona oo ummadda Soomaaliyeed wax farxadeeda ay ka soo baxdo marka inaan go'aansado in dhiniciga qaybta aan hayo ummadda Soomaaliyeed ka qaada wax soo celiso ummadda Soomaaliyeed aan uga shaqeynaa farxadeeda iyo dawladnimadeeda marka adiga miyuu ka yimid heshiiskan aad dawladda la gashay mise dhinaca dawladda ayuu ka yimid xaqiiqiyan walaal dawladda khilaafkii ay ku bilowday muddada yarteeda koobneed markii laga soo saaro wixii ka dambeeyay muddo dheer oo sanad ka badan waxay dawladda dhexe inta badan ay u taagneed in arrintan la xalliyo wada hadal aan intaas ilaahay uu suurtageliyay maanta ana markasta jiray maamulkii aad ka tirsaneed Jubbaland dabcan waxaa la sheegay in xilkii ay ka qaadeen arrintaas sidee u aragtaa walaal waxa sidii waa ka bariyo xil hadda Axmedoode warqadu qoray sax ma aha taas ila ma arko waxa jawaar oo fara badan dawladnimada shacabkan Soomaaliyeed oo shacabka Jubbaland oo dadkan gobolkan Jubbaland la isku raacsan yahay oo loo wada dhan yahay oo cadaaladdeeda loo wada siman yahay xuquuqdeeda iyo barakeeda iyo horumarkeedana inta badan marnana ma dhicin oo ma jirin laakiin hadda ka shaqeynayna insha Allah rahmaan in Jubbaland ummadda Soomaaliyeed oo Jubbaland ay isku raacsan yihiin aan ka shaqeyno biidhnilaahi tacaala ciidamadii iyo gaadiidkii aad wadatay ma dawladda ayaad ku biirinaysaa oo ciidamada dawladda ayay ka mid noqonayaan mise aday weli kula joogayaan walaal ciidamada iyo gaadiidkii ciidamo qaran waayo qaran dawladda Soomaaliyeed doo ku wareejinaya qarannimada Soomaaliyeed doo oo shaqeynayna markii hore adoo wasiir ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaad dawladda ka soo horjeeday haddana xilkii waa laga qaaday dawladdiina waad ku biirtay hadda maxaad noqonaysaa Cabdirashiid walaal ani markasta shakhsi reer Jubbaland aan ahay taas iga mas'uuliyadu kama tagayo mas'uuliyadda xil ina hayay inaan wax kale markaas ayada ah laakiin shakhsiyan inta aan noolahay shakhsi waxaan ahay reer Jubbaland oo Soomaali ah qarannimada Soomaaliyeed oo guud ahaan iyo mid gaar ahaan reer Jubbaland oo wanaagooda maslaxadooda inuu ka shaqeeyana ay u taagan markasto waxaan ahaanayaa marka shakhsiyan Cabdirashiidka aan shalay ahaa khilaafka dawladda dhaxanaga dhaxaysan ee xilliga uu soo bilowday wuxuu sanadkii hore bishii 8aad xilligii doorashadii Jubbaland xilligaas ayada ah barnaamijka ka dhacdo ay ku kala aragtidaan dawladda dhexe xaqiiqiyan oo wado aan sax ahayn oo beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliyeed baa ay ku ka qaylinayaan iskeen dhasilnay aan go'aansanay groupkan iyo talada hayay inaan qaadanay inay taanada bas socoto oo si sharci darro ah go'aansanay inaan annaka isoo celin annaka maamulka ayna isoo celin dabcan taas waxaa dhacday marka khilaafkii aniga oo si xamar lagu qabtay Jubbaland xirnaa 5 bilood ah kadib khilaafku baa taagna asagaan maanta ka gudubnay in afjarno
aynu ku bilownay sidii aad ku maqlayseen hordhaca barnaamijka dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in si rasmi ah ay heshiis ula gaartay wasiirkii amniga Jubbaland Janan oo lagu soo dhaweeyay maanta isaga iyo ciidamo u wato magaalada Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gado. Janan ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in markaasi uu qaatay go'aanka la xiriira in dowladda uu heshiis la gaaro. Haddaba goor dhaweed ka hor daqiiqado intaynu hawada soo gelin ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaana uu iga warramay bal heshiiska ay dowladda ay wada gaareen. dowladda Soomaaliya waxaa ku heshiimay in khilaafkii afjir laga heshiiyo shacabka Soomaaliyeed loo turo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed muddo maqneed oo faa'iido hadda la helay oo codka wanaagsan ku socotana in laga wada shaqeeyo si ummadda Soomaaliyeed qarannimadeeda iyo sharafteeda loo soo celin lahaa khilaafkana la xiro xaqiiqiyan shacabka soo gaar ahaan aniga shakhsiyan shacabka Soomaaliyeed oo cudurro Soomaaliyeed inta badan fiirinayeen oo islaayeen dabcan xal kali doona oo ummadda Soomaaliyeed wax farxadeeda ay ka soo baxdo marka inaan go'aansado in dhiniciga qaybta aan hayo ummadda Soomaaliyeed ka qaada wax soo celiso ummadda Soomaaliyeed aan uga shaqeynaa farxadeeda iyo dowladnimadeeda. Marka adiga miyuu ka yimid heshiiskan